hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayaa soo bandhigtay Ibraahim Aadan Ibraahim oo ah horjooge sare oo ka tirsanaa maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab oo isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya. Horjoogahan lagu magacaabo Ibraahim Aadan Ibraahim oo ah horjooge sare oo ka tirsanaa maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab ayaa waxa uu ka hadlay waxa uu u qaabilsanaa maleeshiyaadka naflacaariga ee Al-Shabaab iyo sababta ku kaliftay inuu ka soo goosto. anigoo ah Ibraahim Aadan Ibraahim kuna magac dheer Ibraahim Nadaara kana tirsanaa ururka Al-Shabaab una hayay xilka xafiiska waxbarashada gobolada Baa iyo Boqol horeyna uga soo shaqeeyay makaatibta kala ah dacwada iyo maktabka waxbarashada guud ee xarakada kaasoo aan kaga soo shaqeeyay qaybihiisii kala duwan sida qaybta diyaarinta manaahijta waxbarashada iskuulada iyo qaybta ta'hiilka ama bixinta dowraadka tababarka thaqaafo ardada iyo macallimiinta iskuulada. waxaan ummadda muslimka ee dunida ku nool u cadeynaya guud ahaan gaar ahaan shacabka muslimka ee Soomaaliyeed laga bilaabo cawada oo ay taariikhdu tahay 27 bisha koowaad sanadka 1436 ee hijriga oo waafaqsan 29 bisha 8aad 2016 in aan ka baxay ururkii aan ka tirsanaa ee Al-Shabaab kana tanaasulay afkaartoodii wax badan oo ka mid ah khilaafsanayd diinta islaamka iyo ahdaaftii ururka u cilaamsanayd. asbaabta aan uga soo tagay ururka waxaa ka mid ah khaladaad isugu jira kuwa diineed iyo kuwa maamul oo xarakadu ku jirtay. iyadoo arrinka aan ku buraarugay muddo hadda laga joogo 2 sano balse aan islahaa wax unbaa isbedeli doona arrinkase wuxuu noqday ka daro dibidhal. khaladaadka diineed waxaa ka mid ah 1 fududaysiga dhiigga muslimka sida in dadka la laayo maxkamad la'aan waa laga shakiyay kaliya ama afkaarta xarakadu khilaafayna loo dilo. b baagsiga meelaha caamka ay dadweynuhu ku badan yihiin sida hoteelada maqaayadaha iyo meelaha la midka ah taas oo laga dhigtay xasuuqa dadka shacabka ee muslimka Soomaaliyeed wax alle loogu dhawaado ayadoo marka laga soo tago nusuusta sharciga ah ee xarimaysa daadinta dhiigga qofka muslimka ah xitaa ay diiday baagsiga meelaha caamka ee muslimiinta alqaacidada oo Al-Shabaabku ay ka tirsan yihiin sida ku cad kalimadii uu jeediyay ninka la dhihi jiray Atiyatullaahi Al-Liibi oo ka tirsanaa mas'uuliyiinta alqaacido iyo ninka la yiraahdo Xaarith an-Nadaari kalimad uu jeediyay oo isna ahaa alqaacidada Yemen rahimahumullah. 2 in miisaanka sharciga laga dhigay xarakada qofkay xarakadu soo dhawayso uu yahay gacal kay fogeysana uu yahay cadow. xarakada ka bixitaankeeda laga dhigay gaalnimo ka tirsanaanteedana inay tahay islaamnimo. ninkii culimo ah oo xarakada taageerana uu yahay caalim rabbaani ah ninkii khilaafana uu yahay nin jihaadiid ah oo ka tirsan culama usuuga ama nin jaahiloon diinta islaamka wax ka fahansanayn. qofkay xarakadu taskiyeyso in laga dhigo sidii qof malaa'ika qofkay xarakadu tuhunto ama ay qabsatana uu yahay khaa'in lagana daba hadli karin waxay ku xukuntana lagu fuliyo. 3 ku degdegida gaalaysiinta qofka muslimka ah ayadoon loo fiirin falka uu ku dhacay ama qoolka uu ku hadlay fal ama qool gaalnimo ku ah diinta islaamka ama se aan ku ahayn. 4 in ijtihaadka xarakada laga mid dhigay sida nusuusta sharciga ah oo laga daba tagi karin ama aan la naqdin karin. taas waxay sababtay in rag fara badan oo culimo iyo saraakiil balaha oo ka tirsan xarakadana la laayo kuwa kaleetana ay buux dhaafiyeen xabsiyada sirriga ee xarakada kuwa kaleetana hadda la daba socdo. intaas oo khaladaad ah iyo kuwa aan halkaa lagu soo koobi karin markaan arkay ayaan goostay inaan isaga soo tago ururka Al-Shabaab aniga oo ka faa'iideysanaya fursadda uu madaxweynuhu bixiyay oo ahayd in qofkii ka soo baxa Al-Shabaab la soo dhaweynayo taas oo aan uga mahad celinayo sida wanaagsan ay dawladuna ii soo dhaweysay. gabagabada waaxid waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed
waxaan ka soo baxay waa urur ee ma ahan diin islaam. ururka iyo diinta islaamkuna waa wax kala duwan. ururku wuu dumi karaa, wuu dhisnaan karaa, wuu xumaan karaa, wuuna samaan karaa, oo intaasoo isbedelo ah ayaa ku imaan karo, laakiin diinta islaamku isma bedesho xilli kasta iyo goob kasta. Number 2, waxaan halkan ka cadaynayaa ama aan rabo inaan wax uga sheego dadka la xamaasadaysan ururka al-shabaab ee xamaasadu ka indhatirayso khaladaadka diineed ee xarakadu galayso, inuu waqtiga wax bari doono ee ay ogaan doonaan xaqiiqada dhabta ah ee meesha ka jirta, magaca la sheeganayo iyo afcaasha meesha ka dhacayso inay kala duwan yihiin. ninkii shaacirka wuxuu yidhi satubdii laka alayaamu maa kunta jaahila waya'tiika bilakhbaari man lam tatasawadi. waxaan kusoo gabagabaynayaa, waxaan mar koowaad iyo mar labaad baan u mahad celinayaa sida wanaagsane sharafta leh ee dowladdu ay ii soo dhoweysay. wabilaahi towfiiq.